kulan wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada warbixintan oo aynu uga hadlayno in sarcaadiyadii lagu soo bandhigay barnaamijyada god talentiyada ee ugu dambeeyay waa xeelado cajiib ah oo si farsamaysan loogu indhasarcaadiyay ka qaybgalayaasha barnaamijyada god talentiyada waxaanu idin sharaxi doonaa wiil yar oo soo bandhigay indhasarcaadiyo xiiso leh oo ku saabsan xeeladaha turubka indhasarcaad kale oo ku saabsan dadka niyadooda waxa ku jira oo banaanka la soo dhigayo iyo kuwa kale oo xiiso weyn leh intaanan ku bilaabin haddii aad jeceshahay daawashada warbixinadan oo kale fadlan like saar muuqaalka adiga oo mahadsan indhasarcaadka koowaad xeelad ku saabsan warqado turub oo ilbiriqsiyo isku bedelaya indhasarcaadiyaha da'da yar ee lagu magacaabo Henry Ridson waa 15 jir u dhashay Mareykanka waa xirfadle caan ka ah barnaamijyada lagu soo bandhigo hibooyinka gaarka ah wuxuu soo bandhigaa xeelado indhasarcaad oo qaarkood ay ku adkaato in ay soo bandhigaan indhasarcaadiyaasha kale ee isaga da ahaan ka weyn waa wiil yar oo aad u fakara isla markaana soo curiya hadba xeelad cusub oo indhasarcaad ah hadda indhasarcaadkani waxa uu ku saabsan yahay turub inta ay gabadha garsoorka ihi saxiixdo oo gacanta ay ku daboosho isla turubkaasi la soo saarayo oo meel kale laga soo saarayo indhasarcaadiyaha ayaa masraxa soo galaya isaga oo xamaasadaysan oo gacantana ku wata kurjun turub ah gabadha garsoorka ka tirsan ayuu ka codsanayaa in ay mid ka mid ah turubka ka dhex doorato sidaas ayayna sameynaysaa turubkii ay dooratay ayuu indhasarcaadiyaha da'da yar haddana u sheegayaa in ay gabadhu saxiixdo turubkii ay saxiixday ayuu gacanta u saarayaa gabadha kadibna labadeeda gacmood ayuu ku daboolaysaa markaas indhasarcaadiyuhu waxa uu isna qabsanayaa hal xabo oo turub ah laakiin waxa uu gabadha iyo dadweynahaba u sheegayaa in turubka uu isaga gacanta ku hayo uu ka soo saari doono gabadha gacanteeda kii ay iyadu haysayna uu isaga xaggiisa ka keeni doono sidii buuna sameynayaa oo turubkii ay saxiixday ayuu turubka tirada badan ka soo dhex saarayaa kii uu isagu hayayna gabadha gacanteeda ayuu ka soo baxayaa qof kastana yaab ayaa haraynaya haddaba sidee buu wiilkan yari u sameeyay indhasarcaadkan cajiibka ah sidee laba turub oo ay laba qof kala hayeen la isu weydaariyay waa xeelad cajiib ah laakiin aan ku sharaxo xeeladda indhasarcaadkani waa mid heer sare ah oo xiiso badan laakiin hal sir ayaa jirta oo ay xeeladdu ku tiirsan tahay sida ay ugu tiirsan tahayna waa qaabkan soo socda turubka marka ay gabadhu saxiixdo waxay u dhiibaysaa indhasarcaadiyaha indhasarcaadiyuhuna turubkii ayuu ku dhex darayaa kuwii kale isla xilligaas ayuu labada turub kala bedelay si xirfadnimo ah oo boobsiis ah si aad u fahamtid waxaan isku dayi doonaa in aanu ku tusaaleyno muuqaalkan soo socda marka la saxiixay turubka oo uu turubka kale ku dhex daray waxaan u maleynaynaa in uu kor soo jiro turubka laakiin labada turub ee ugu koreeya ayuu kan labaad yahay sidaas darteed turubka koowaad ee ugu koreeya ayuu soo qaadayaa oo uu gabadha u dhiibaya isaga oo ka dhigaya in isla kii la saxiixay uu yahay qof kastana sidaas ayuu u rumaysanayaa sidaasna gabadha waxa ay ku haysataa turubkii uu isagu qabsaday kii ay iyadu saxiixdayna isagoo turubka kala soo dhex baxay ayuu gacantiisa ku jiraa waa intaas oo kaliya indhasarcaadka labaad wax dadka niyadooda ku jira oo la soo bandhigayo indhasarcaadiyaha da'da yar ee lagu magacaabo Henry Ridson ayaa isla xeeladana soo bandhigaya warqad turub ah ayuu u dhiibayaa gabadha Melby oo guddiga garsoorka ka tirsan sidoo kale waxa uu soo qabanayaa buug yar oo qoraal loogu talagalay oo ay wax ugu sawiran yihiin kadibna waxa uu u dhiibayaa Simon oo guddiga garsoorka ka tirsan wuxuu u sheegayaa in uu buugga kala furo waxa ugu horeeya ee uu arkana uu niyadda ku haysto kadibna isagoo aan ogeyn uu banaanka soo dhigi doono wixii uu Simon buugga ku arkay Simon sidii ayuu sameynayaa oo buuggii ayuu kala furayaa waxaana u soo baxaya sawir ay kubad ku sawiran tahay intuu isku daboolo ayuu indhasarcaadiyaha dib ugu celinayaa si uu indhasarcaadiyuhu u soo saaro waxa uu Simon buugga ku dhex arkay oo hadda uu niyadda ku haysto ayuu gabadha Melby oo guddiga ka tirsan uu u sheegayaa in ay kala jeexdo warqadda turubka ah oo ay hayso
kadibna waxaba ka soo baxay isla sawirka kubadda oo uu Simon buugga ku dhex arkay. sidee ku dhacday? xeeladda nasracaadkani way sahlan tahay, waxayna ku tiirsan tahay buugga laftigiisa. wiilkan yar ee nasracaadiyaha ah waxa uu soo diyaarsaday buug, kadibna si halka bood ah ayuu warqadaha buugga ugu sawiray kubad. baal kasta oo uu kubadda ku sawirayna uu ka gaabiyey baalasha kale ee uu ku sawiray waxyaabo kale oo kala duwan. tusaale, hal baal ama warqad ayuu kubad ku sawiray, wuuna gaabiyey oo maqas ayuu ku jaray. warqadda ku xigta ayuu wax kale ku sawiray, haddana tan kusii xigta wuxuu ku sawiray kubad, wuuna jaray. marka haddii buugga warqadihiisu ay 50 xabo ka kooban yihiin, tusaale ahaan 25 ka mid ah wuxuu ku sawiray kubad, warqad ahaanna way ka gaaban yihiin kuwa kale. warqadaha 25 kale wuxuu ku sawiray waxyaabo kala duwan, wayna ka dhaadheer yihiin warqadaha kale ee kubadda lagu sawiray. sidaas darteed marka buugga qaabkan loo qabto, waxaa la arkayaa sawirada kala duwan ee buugga ku dhigan. laakiin marka qaabkan kale loo qabto, waxaa soo baxaya oo kaliya warqadaha ay kubaddu ku sawiran tahay. sababtuna waa in warqadahaasu ay ka gaagaaban yihiin kuwa kale ee aysan faruhu soo qabanayn. kadibna nasracaadiyuhu waxa uu diyaariyey sawir kubadeed oo uu turubka dhex geliyey, isaga oo sii ogaa in sawirka Simon usoo bixi doono uu yahay midka kubadda. waa intaas oo kaliya. nasracaadka saddexaad, buug kaligiis turub isku sawiraya. nasracaadiyaha lagu magacaabo John ayaa masraxa soo galaya isaga oo wata buugnood weyn iyo warqado turub oo waaweyn. guddiga garsoorka ayuu hordhigaya warqadihii turubka. mid ka mid ah guddiga ayuuna ka codsanayaa in uu mid ka doorto turubkaas. kadibna waxa uu weydiinayaa in uu soo bandhigo turubkii uu doortay. waa turub number 5 oo madow ah. kadib isla turub number 5 oo madow ayuu ka soo dhex saarayaa buugnoodka uu wato, weliba isaga oo sawir ah oo haddana dhaqaaqaya. marka uu dadka tuso sawirka dhaqaaqayana, warqadda waa uu jeexayaa oo guddiga ayuu tusinayaa si ay u sii xaqiijiyaan in wuxuu ay sawir meel ku dhegan uun yihiin. sidee ku dhacday in ay isku soo aadaan turubka ay guddigu doorteen iyo midka uu buuggan ku sawiray? sidoo kale, qaabkee suurtagal ku noqotay in sawirku uu dhaqaaqo oo ayada oo la daawanayo uu kor u soo baxo? waa mid ka mid ah nasracaadiyadii ugu yaabka badnaa ee waayadan la soo bandhigay, laakiin waa xeelad sahlan oo aad adigu xitaa samayn kartid. aan ku sharaxo. nasracaadiyaha iyo ninka guddiga ka tirsan ee turubka dooranaya way isku og yihiin in uu doorto midka number 5 ah. sababtoo ah hore ayuu buugga ugu sii diyaarsaday oo number kale haddii la qabsado way adkaan doontaa in isla numberkaas uu buugga ka soo baxo. in ay isku og yihiinna waxaa kuu caddaynaya marka koowaad ninka guddiga ka tirsan waa la tusayaa warqadaha turubka, kadibna waa la gembinayaa si uu mid uga doorto. laakiin nasiib darro, isku dayga koowaad wuxuu qabsanayaa oo uu dooranayaa number aan ahayn kii la soo qorsheeyey. kadibna si xirfadyahanimo ah ayuu ugu baaqayaa John oo wuxuu leeyahay, ma ku adkaysanaysaa mise waad iska bedelaysaa? intuu shakiyo ayuu dhahayaa, waan iska bedelayaa. waxa xiga in mar kale turubkii loo fidiyey oo la tusiyey meesha uu ka jiro number 5, kadibna isla number 5 ayuu ka dhex doortay. haddii aan hore loogu heshiin in isla numberkaas la qabsado, muxuu uga noqday kii hore ee uu qabsaday? muxuu ugu adkaysan waayay? tan kale, John laftigiisa muxuu u weydiiyey, ma ka noqonaysaa mise waad ku adkaysanaysaa? su-aashaas ayaa baaq u ahayd in laga noqdo oo turubka lambar 5 la qabsado. waayahay, taas lambar qabsashada haba lagu heshiiyo, laakiin tan kale, sidee turubkaas uu buugga uga soo baxay isaga oo sawir ah oo soconaya? waaba arrin cusub oo yaab badane. iyana waa mid kaloo sahlan. waa xeelad mechanism ah oo la farsameeyey. bal eeg muuqaalkan oo aan ugu talagalnay in aynu ku tusaalayno xeeladda. nasracaadiyuhu waxa uu diyaariyey sawir u eg turubka oo lambar 5 ah. kadib mid ka mid ah warqadaha turubka ayuu ku sawiray box yar ama sanduuq yar. qaybta kore ayuu ka jeexay. warqadii uu turubka ku sawiray ayuu dhex geliyey, kadibna dun khafiif ah ayuu kula xiray oo uu ku dhaqaajinayaa farihiisa oo buugga dambe xiga. laakiin marka kor looga jeedo lama fahmayo, waxaana loo malaynayaa in sawir dhaqaaqaya uu yahay. marka uu guddiga iyo dadweynaha tuso sawirka oo dhaqaaqaya,
wuu laabayaa warqadahaasi si qarsoodi ah. wuxuu soo bixinayaa oo uu soo jarayaa warqad kale oo isla sawirka oo kale uu ku diyaariyay. kadibna qof kasta ayaa u qaadanaya in sawirkan oo kaliya uu ahaa kii la dhaqaajiyay, laakiin sax ma aha oo waa laba warqadood oo la kala diyaariyay. waa intaas oo kaliya xeeladda indhasarcaadkaasna. gabagabada waxaan rajaynayaa in aad ka heshay xeeladaha indhasarcaad ee aynu ku furfurnay warbixintan. laakiin qodobkee ku xiisi geliyay ama kuugu yaabka badnaa ee aad ku daawatay warbixinta? fadlan nala wadaag aragtidaada. haddii aad ka heshay warbixintan, ha ilaawin in aad like saartid. waan kaaga mahadcelinaynaa in aad daawatay warbixinta. sidaas ayaanu u soo diyaarin doonaa muuqaalo kale oo ku xiisi geliya. inta aynu ku kulmi doonno warbixin kale oo xiiso leh, nabadgelyo iyo nolol kulanto oo xiiso leh.